bilow cusub markaad doonaysid inaad la imaado hadaf, markaad doonaysid inaad la imaado hal abuur, markaad rabtid inaad noloshaada sida maanta tahay wax ka bedeshid, markaad rabtid inaad noloshaada sidii shalay ahayd aad wax ka bedeshid, markaad rabtid inaad noqotid qof cusub, markaad rabtid inaad furatid ganacsi, markaad rabtid inaad qof wax ku darsato, iyo markaad rabtid inaad noloshaada dhisato. sida caadiga waxaad la kulmaysaa caqabado badan, waxa kale aad la kulmaysaa cadow, xaasid. nolosha taasna caadi ay ka tahay. maanta qalbigaaga waxa ka dhex guuxayo shay qurux badan oo aad noloshaada ku horumarin kartid. qalbigaaga waxa ka dhex guuxayo riyada noloshaada aad ka lahayd. qalbigaaga waxa ka dhex guuxayo wuxuu yahay wax qabadka aad doonaysid dunida inaad kusoo kordhisid. qalbigaaga waxa ka dhex guuxayo iftiin qurux badan oo aad doonaysid inaad dunidan kusoo kordhisid. markaad doonaysid inaad dunida kusoo kordhisid wax ka duwan waxay dadka kusoo kordhiyeen, run ahaantii aqli qurux badan ayaad leedahay, fikrad qurxoon ayaad leedahay, wax qurux badan ayaa ka dhex guuxaya. waxaas ka dhex guuxaya waxaad ka baqaysaa haddaad soo bandhigtid dunidan maanta aad ku soo bandhigtid, ama qof kale aad kala tashatid, amay ku bahdilaan, ama niida kaa jibiyaan. waxaan lama samayn karo, waxaan lama qaban karo, waa lagu soo daalay, waa lagu khasaaray, hebelaha kusoo khasaaray amay ku dhahaan. dadkaas hadaladooda waa been. dadkaas hadaladooda dhig ha u dhigin. war hadallada dadka dib iyo kuu celinaya mooye hore kuma wadaayaan. hadallada dadka dhagaysan bas un taada ku cadaato. qalbigaaga ka tasho, allahaaga la tasho. wax aad doonaysid inaad bilaawdid, bilowga hore bilow. wax waliba way adag yihiin bilowga hore, wax walbo bilowga hore way xanuun badan yihiin, way stress badan yihiin, laakiin ugu dambeyn waad ku guulaysan doontaa, waana ka mari dhalin doontaa wax alle waxaad doonaysid inaad soo bandhigtid oo gudahaaga ka dhex yeerayo. markaad la tashatid dad yooga qaar maanta way ku nijibi doonaan, dib iyo kuu celin doonaan. dadka qaarna kulama hadlaayaan, gadaashaaga ka hadli doonaan, iyagoo xaasidnimo ay ka tahay midaasna. markaad hal abuur cusub aad la imaadid, ama ganacsi aad furanaysid, ama wax aad soo kordhisanaysid cusub, waad la kulmi doontaa cadow, xaasid, gadaashaan laga hadlo, adiga xataa stress kugu noqon doontaa. maxay dadkan kaa damacsan yihiin, maxay kaa rabaan ayaa isdhihi doontaa. laakiin waa sida caadiga dunida ee maanta ka tahay wey. dunida maanta aan ku noolnahay xaqiiqadii waxaa kusoo batay xaasidiintii. horumarkaaga laguma ogolo, inaad wax qabsatid laguma ogolo. mid waliba wuxuu rabiyaa inaad adiga ka hooseysid oo hoostiisa aad joogtid, aad horumar gaarin, aad wax qabsanin. qalbigaaga waxa ka dhex guuxayo waa wax qurux badan. qalbigaaga wax ka dhex guuxaya waa wanaagsan yahay, waa wax wanaagsan. ha isdhihin qalbigayga waxa ka dhex guuxaya amaan ku khasaaraa, ma ku khasaaraysid. mid walbo anaga naga mid ah laba hadal ayaa qalbigiisa ka dhex yeero. hadal waa mid ku dhahaya hore u soco, midna wuxuu ku leeyahay ma socon kartid, noqo, ma samayn kartid, ma yeeli kartid. mar walba waxaad samaysaa kan ku dhahayo samay, waa samayn kartaa, waa samayn kartaa, qabo, waa qaban kartaa, qaado. dhagaysan midka kale qalbigaaga ka yeerayo, dadka hadaladooda ugu badan yihiin, marnaba ha ogolaan inaad dib u laabatid. ugu dambeyn allahaaga tala saaro. bini'aadanka hadaladooda iska dhaaf, hadaladooda dhig ha u dhigin. allahaaga tala saaro, amuurahaaga alla u dhiibo, alla bari, gacantaada alla u tag. ma khasaari doontid, mana guuldaraysan doontid, mana murugood doontid, mana cabsan doontid. dadka hadaladoodana wax saameynna noloshaada kuma yeelan doonaan, waana guulaysan doontaa insha allah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.